بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Rooda Daahir Gaduude waxaan ka tirsanahay shacabka reer City waxaan si xoog ah aan u cambaaraynayaa in dawladdan Canfarta dawlad deegaanka Canfarta oo si xun u gumaadaya dadkeena oo dhiigooga dhulka ku qubaayo iyaga oo magac dawladeed sheeganaya oo awoodii dawladnimo ku faanaya ayay shacabreeyada oo awood aan lahayn oo maxadanay xoolo dhaqato oo reer baadiya oo tamar aan lahayn hubkooga ku gumaadayaan taasina cadaaladda kuma jirto in waxa kale oo maxadanay si aad iyo aad aan u cambaaraynaya anagu dawladda federaal dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya aad baan u dhaliilayaa cambaaraynaya waxa aan u dhaliilayo Canfar iyada naga daran sababta ay nooga daran tahay meesha uu shalay toole dadkeena uu aadka ugu dhamaaday aadka loogu xasuuqay waa dan la helana waxay ka tirsan tahay gobolka City maadaama ay ka tirsan tahay la garta waa man garanayba tani Canfarta cundufiya cadeyti iyo gadmal waa man garanayba oo deegaanka la hoos tagaysan mas'uuliyadooda ma hayaan balse tani shalay toole gobolka maxadanay dan la helay ka dhacday dadkeena dukaanada lagu gubay dadkeena maxadanay qoryaha lagu gumaaday sida xun loo galay ilaahay mas'uuliyiinta deegaanka Soomaalida ayuu qarsanay oo ugu horeeyay madaxweynaha Mustafa Cagjar ku xiga aadan farax dhamaan mas'uuliyiinta deegaanka Soomaalida oo dhan ayaa la qarsanaya shacabka shalay toole sida xaq darrada loo dilay ee dhiigooga loogu yaaciyay maatiba la dilay hantiba burburtay hanti waxa male waa la heli karaa laakiin naf bil aadan lama heli karo annaga halka qof naga dhintay xataa kama maarano iyada oo 23 naga dhimatay iska daayay dawladda federaalka Itoobiya hadii sida ugu dhaqsaha badan ay uga soo gali waydo annaga waxaan la yiraahdaa ciisana la yiraahdaa Soomaalinimada ma rabna anagu mar wala Soomaali dhibaato ku dhacdo number 1 baan nahay dadka ugu horeeya difaaca ee soo baxay Soomaalinimada dabar u leebaan nahay sababta maalinta anaga dhibaatada ay nagu dhacdo ee dadkeena la xasuuqay la gumaaday sababta Soomaalinimo soo garab joogsan wada maxay tahay Soomaali ma nihin saacada laga bilaabo annaga ciisana la yiraahdaa ciisa hadaan caanaheena naga badan waan isku filanahay oo waan kala badanahay waanan iska dhicinayna cadow walaana soo galana taariikhda hore inoo qortay oo noo xustay maantana taariikhda ayaa na xusi doonta insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo cadawgu nooc aliya nooc doon haduu ahaade waxa aan khaasatan fariin aan u direeyaa beesha ciise weyna meel kasta caalamka ka joogan soo gurmada waa dadkiina waxa la xasuuqay waa dadkiina waxa la dilay waa dadkiina waxa inta la sheeganay dawladnimo lagu meeray dawladnimo lagu dilayo war annaga dagaal iyo hub iyo gumac waan naqaanaa dhulkan aad arkay sida inta la eeg hub baa lagu riday maantana maxaa nooga baa inaan ridano war dhalinyaro dhulka ka kaca fadhiga ka kaca intii fadhiday kaca intii jiiftay fadhiista dhulkeena haan dhacsano dhiigeena cilada ku qulqulay maatideena cilada balanbalaysa dadkeena dhaxanta cilada ku dishay ee barakacaya haan u gurmad iyo gargaar ciisa annaga isku Soomaali ha noo tirinina tu dawlad deegaana iyo tu kale ta caalamka meel kasta ka joogan Soomaali ha noo tirinina Soomaalinimada Soomaaliya waa niideena baan leenahay balse ciisa dhaxda xidharag iyo dumar yaan loo kala xarin dawladda federaalkuna hadii ay arrinkan isbedel ka keeni waydo anagu waan kacnay sida aan ku kacnay baan ku taaganahay hadii ay isbedel ay ka keeni waydo arrinkan ay maxaadaanay ay sida ugu dhaqsiyaha badan u kala dhaxgali waydo anagu waan kacnaa ma fadhiisanayna jabhadda markii hore nagu tilmaamaysan tu dhab aan noqonayna waana la ismarin wabillahi tawfiiq waan ka baxay